shaqadan waxaan ka shaqeynayay iminka 3 sano iyo 5 bilood laga soo bilaabo 2013 bishii 7aad baan shaqada bilaabay ilaa iyo maanta ay tahay 2016 bishii 12aad 26 alxamdulilaahi rabbil caalamiin inta dadaal dheeraadan u galay ilaahayna wuu ila garab qabtay inkastoo wax badan aysan saxmin misana intii taalkayga ahayd waan islahawa soo gaarsiisay shaqadan 17kii bishii 12aad ee sanadkan baan rasayn gareeyay waxaan u rasayn gareeyana waxay ahayd sababo jira oo ay shaqadu ka socon kar weyday wuxuu damiirkaygu siin waayeen aan marxanta ka noqdo dulmi fara badan iyo musuqmaasuq ka jira gobolka wasaaradaha faraha badan ee aan saaxiibadaha wada shaqeyn jirnay shaqadooda qaybna degmada haysa qaybna gobolka haya xarumaha shaqadooda fariin tala bixinna waxaan u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne barsaab kastoo aad keenayso gobolada wuxuu baahan yahay in la tababaro oo la fahansiiyo shaqada ay wasaaraduhu qabanayaan shaqaabo fara badan dhalinyarada inaanu sameeyo waan isku dayay way hirgal weedo oo la hor istaagay ilaahu baa subhanahu wa ta'ala wixii 100% ay hirgalaan inagu binaadam baynu nahay misana dadaal muu yarayn waxaan mar labaad isna ku soo dhaweynayaa saaxiibkay Saciid Axmed Olol waxaan leeyahay istuu ku soo dhawow waxaan rajaynayaa inaad shaqadii halkii ka sii wadi doonto inaad la xisaabtami doonto hay'adaha caadaystay musuqmaasuqa dheeraadka ah inay sii wadaan iyo habkii ay u shaqeynayeen iyo cidii aan ku haboonayn oo wax la siinayay oo loo horseedayay taasina waa mid ku sugaysa aan u soo noqdo sababihii ugu xoog weynaa aan kaga tagay shaqadan wasaaradda ay ka koowahayd waxa weeyaan agaasimaha guud ee imika jooga iyo agaasimaha waaxda admin and finance ee wasaaradda qorsheynta waxay ahayd culayskii saaraa barsaabka gobolka imika jooga iyo maayirka degmada ee imika Cergaabo markaan ka hadlay cadaalad fara badan in la sameeyo in laga shaqeeyo sinaan iyo horumar inta badan dhig loo dhigi waayo aniga culays lagu saaray in wasaaradii wax badan laga xayiro markaan arkay in sida la rabana waan sii eegan kar waayay taasina waa sababtan iyana shaqada nuga tagay midna bulshadan kula talinaya dadkan kuraasta idin fadhiya iskama fadhiyaan idin fadhiyaan waxaad xaq u leedihiin inaad la xisaabtantaan waxaad xaq u leedihiin inaad kulama sameysaan waxaad xaq u leedihiin inaad soo casuntaan inaad su'aalo weydiisaan inaad kala xisaabtantaan kuraastana idin fadhiyaan taana waa mid aad gabteen laakiin aan anigu wax badan oo dhalinyarada kamid ah aan iska aragnay aan noo sheegay inay sameeyaan laakiin ma dhicin laakiin iminka ana idin horseedaya inay dhacdo nin walba aan la xisaabtano